قصدي عقب سومين عكسوين قفنابا قصبكي فرحة هذا خاص وليه فراج 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 يا فراج اللي في معاك وقول حي أنيقة اقرأ علي هذا هاي سيدان يا دربتي سومان ونوغاي waxyaabaha adiga damacsan tahay inay qoftan inaan kala geysnaa waryaha igu qaldamin teeda kale laba qof oo 6 bilood oo kaliya is yaqaano haddana dhaqamadan ku dhaqmay waligay aniga ma arkin guurkan waa qiyaamo mana ogolaan kara qiyaamadan aniga tirada badan bes naga dheeqoy yaa qeydad sanado badan jacayl ka dhaxeeya xataa sidaan uma dhaqmaan naagtan waa la wajiilay adigoo abaal u galaayo garabkeeda taaganaya gabadha kaa kaxaysatay xitaa xumaanta ay kugu abuurtay hooyada ayaa dhabarka soo xijisay waadna i qiyaantay laakiin baraawa ay kugu tahay iyada ayaa hadda ku qiyaamayso lixda bilaad sheegaysid oo xaggayga waa ay ku weyn tahay haddii aan wax ku fahamsiin lahaa hooy wax aad fahmaysid haba yaraatee ma jirto jacaylkana hooy waxaad adiga fahmaysid maahan hadeertaan runtiisa waayo hooyo beella tahay dadka waalwaalan hal qofoo fiican ayaa ka soo baxo diya koobka waalida adiga ayaa qaaday albaabka kama soo bixi kartid aan ku dhahay hooyo aniga ma waalniya aqay waan fiicanahay hooyo kaalay maqal hooyo waa ku barya hooyo halkan ayaan jooga aniga hooyo kaba soo qaad intinaan taayna maxaa sidaan iigu galaysaa aniga qalbi ayaan leeyahay waxna waan jeclaanayaa xafladda intaan jooga sawiro fiican maba gelinba fiiri waxaan galayna gabadheeda taleefankeeda haddii aad ii dhiibi lahayd wax fiican ayaan geli lahaa soo maaha fuliya maxaa waay murugtan aa noo shidaysidna gabadheeda dhibaato miyaa dhacday ii sheeg gabadheeda gacliyahaagaa ku soo wacaayo hoo taleefanka ka qabo gacliyahee ka hadlaysaa hooyo macaan iga dhaafa ku dhahay maxaa dhacay haddana gabadheeda dhaqsiyaa qay qabo taleefanka ma qabanayo inta iga dhig gabadheeda dhibaato miyaa idinka dhex dhacdayna hooyo asaga waa ka furin waa ku baryaaya gabadheeda waan furayaa habeen wanaagsan haweertayda fuliya adiga taleefanka maxaad iga qaban leedahay hoo irintaa ka furayso kuma dhihin maxaa u furtayna kuma baahni iska baxayaan ku dhahay fuliya idhigaysa marka hore sidee waxuu jiraanne iska bax ayaan ku dhahay hadalkaaga ma rabeen fuliya qaladkaa kaa gala horta ifaansii ilaahay haddeerta aniga ma aqaan waxaan kaa sameeyey ifaansii maa i dhahdayna warheedh anigoo xaadira oo meesha taagan ayaad naagtas timaha jaalladaana iga raacda soo ma ogid naagta timaha jaallada leedaha micnaa soodaa maa ka wadaanne haa hadda wuu fahme ayada waa naagta alaabta gelinaysa weliba aad ka soo tegi weysay way qurux badneed maho fuliyaha qalada aaminsan tahay sidaana samayn marka hore kuma dhegaysanaa ayaan ku dhaha ee iridayda horteeda waa inaad iskaga tagtaa iskaga tag fuliya waa ku barya sidaana samayn fuliya dhegayso اللي فادق ما في عنتهينا واحدة باتها ما خبو هو يدي دبعته ذي كوجي سني صادق ها وخبرين هروا عن كوجو شيء ويكوجو سمسة مر لبعض نوي كسر سودا وحنا كلنا كوجو سمسة قرح يعني سح دافع يعني كوجو على هاي
eleef aniga si dhaba ayaan ku aaminsanahay haddeertaan joonishayna aadaya waana soo seexinayaa maalmahan ayada hurdadeeda waa yartahay waayahay hay macantadeeda oo hay kanaa waan soo seexanayaa boostada dhinacayga leexi wax walba dartaada ayaanu sameynayaa waan ogolahay ugu dambeyn gurigeyga iyo shirkada kuguma arki karin xitaa wiilkeyga firad kuguma arki karin isku leefar mani wiilkeyga ka dheero ayaan ku dhahay mii fahanteen fiihnaya maxaad u baahan tahayne yaa tahay adiga qofkan ha in awaato muhiim maahan muhiimadda waxay tahay inaan labadeena wada shaqayno maxay taa shaqada igala kaa dhexayso habeennimada iigu imaatay waxaan rabaa shaqada lagaa soo buriyey maanta inaan kaala hadlo iyo waxyaabihii hore aad weysay adiga silimada arrimaha firaad iyaas dabax waan soo geli karaa soo maahan
waqtiga quraacda la taagan yahay waa idin diyaarinaa hoos u soo degta subax wanaagsan macaanto xilliga quraacda ayaa la taagan yahay waa inaan hoos u degnaa waan quraacanaynaa soo maahana aye subax wanaagsan gabarteediyaal orad ka soo kici hurdada guurkooda waxaa waaye marwe cimraan yaqay bax soo kici may maafiish looma baahna aniga ayaa soo kiciyey maxaa yeele mar labaad ayay gabadheeda la seexatay iyada micnahaada labadooda kala meel miyay jiifteenna haddaan aniga gabadhaada ahaan lahaa maxaa jeclaan lahayd inaan noqdo inaadan iga xanaaqin oo aad i fahanto mar walbana aad ii sawarto aniga amiradeeda aad qaadato intaas ayaan jeclaan lahaa oo mar walbana la ii samro waa sida aniga aan rabo sawirkayga waa inaan badiyaa mana xanaaqaayo waana isdejinaya muhiimna maaha inaan xanaaqo waa inaan wax walba fahmaa see camal hee maanta maxaa kaa yeerooy waxba ma jiraan hooyo keliya waxaan raba inaan ku dhaho subax wanaagsan cawabarigaaga siduu ahaana sababna maafiish maxaa dhacay ukunta maadan keenin see camal hee subax wanaagsan qurxey subax la mid ah aniga xala joonis xaggeeda iyo hurdadigula tagtay waan arkay midaas marka hore waan kuu imaaday waxaan rabay inaan ku kiciyo balse waxaan arkay adigoo si qurux badan uu hordaayo waaya joonis hadda way diyaarsanta anigana waan isdiyaarinaya ogaadi horta inaan ku soo kiciya qurux badneen soo maahanna run ahaantii xaloo dhan aniga maanan seexanin indha haddaan isku qabta adigoo keliyaan ku arkaayo caraftaada iyo weliba neeftaada firaad quraacda waan ka daahnay akhay sideed u hadlaysaan kaal adiga wax khaldan miyaa jiro runta ii sheeg aniga maya hooyada waa ogtahay soo maa waan ogahay midaas anigaa garabkaaga taagan juulisha ayaa garabkaaga taagan intaan garbahaagana wax dhibaatoo dhicaysa haba yaraatee ma jirto koley waayahay laakiin wax walba si dhaqsila ayay ku dhaceen haa maxaa dhacay kuma faraxsanid ugu dambayntii ani adiga waan isguursannay soo maaha ahaa joonis darteeda juulish haddiisan gurigaan joogi lahayn maxaa dhici lahaa ileyf baahi ayaa ku haysa soo maahanna adigii joonis hoostii aad anigana waan isoo diyaarinayaa waayahay hay juulisheeda soo baxay tartiib
subax wanaagsan aboowe subax wanaagsan gabadheeda wanaagsan ii fariisi yariisteeda subax wanaagsan nolosheeda ma rabtaa maanta dhinacayga in aad soo fadhiisato waayahay kuma khasbahay sida aad jeceshahay maradaada ayaan hadeertaan kuu saaraya okay subax wanaagsan iliif subax lamida subax wanaagsan subax lamida qolka joonish inaad jiiftimiyaa kula habboon iliife joonish ayaan hurdasiinayay kadibna aniga ayayba hurdadii la tagtay kaama yeelin middaas aniga iliif adiga qolkaaga ookay kuma tid sababtoo ah waxaan u malaynaya xoogaa qol weyn ayaad u baahan tahay hadalkayga sax mahanoo hadday wax kaa qaldin waa ii sheegi kartaa waan kaa beddelayaa lacagoo ilaahay siiye aniga maya looma baahnaa ord maafiish nin io naag isqabo haddana aan isla jiifanin sababta keeni karta maxay tahay aniga waa la yaabanahay hooyo gabadha hurdaa la tagtay marka arrinta ha dheereen adiga haa hooyo waxay doonaan ha sameeyaan jooska ayagaa iskale soo maha naahedha dhexdeena ha soo gelin saakila hadda qaabdarro ayaad ku hadlaysaa raashinkaa ku filantae cun waayaa hooyo sida aad jeceshahay amarkaagaa jiro joonis caawa laga bilaabo qolka keligeed iyada ayaa jiifanaysa sababtoo ah gabar weyn ayay noqoto uma baahna in lala jiifto labadiinana waxaa loo baahaya inaad wada jiifatiin oo inaad isqabtiin aad muujisiin hadalkayga qaata haddeertaan shirka waa uu noo dhammaaday wixii dhimanna iimailka ay ugu soo diraysiin waad fahanteen soo maahan waayahay shaqo wacan waa mahadsantihiin halo albiir firaad adiga ma imaanaysi maa shaqada saaka ilaahay haddeertaan dadka wayna soo wacayaan waayahay saaxiib aniga imaana intaas ii sii boojaya haddeertaan oo aan soo baxaya okay joolisteeda waxaan rabaa shirkadda inaan aado okay waan soo laabanaya waan sii baxay shaqo wacan walaalkee halo maruubiiriin ayaa kula hadlaysa waxaan kaaga baahanahay xafladda qarash walba uu ku baxay iyo habeeskaba intaba inaad ii soo diyaariso waayahay laakiin fuliyaa maxay ii soo wici weyse ayada waxaa micnaha shaqada aniga ayay igu wareejisay waan fahmay fuliyaa agtaada ma joogtaane ma joogto maya agteeda ma joogto sidee wax u habeenaa marka waan gartay adiga waxaa samaysaa iimail kale igala soo xiriir aniga wax walba xalinaaya waayahay jiimailka anigaa kaaga soo xiriira waadna mahadsan tahay adigaa mudan fuliya albeer wuxuu dhahay jiimailka waa inaa igala soo xiriirtaa waaya waa la xiriiri kartaa adiga ord
diyaarataa soo maaha maxaan isku ogeen mar walba sidaas ayaan kaa rabaa waxaan kugu ogahay xilli walba adiga inaad ii faraxsanaato adiga mar walba qalbigayga ayaad ku jirtaa waan ogahay macma isiinaysid miya haye macaantadeeda hadda ii baashaal wakhtigaagana ku raaxayso maalintaadana ku wacnaato haye qabsa boorsadaada kaala jooniishdeeda galgaariga horta mid ma og tahayna hooyo iyo maafiish waa ay daaleen maanta laga bilaabana gabadheeda aniga ayaa xanaaniinaa wax dhibaataa ma laha way ila qabsanaysaa markii ay weynaatona waa huwaal way i jecnaanaysaa iyada middaasna aad iyo aad ayaan u huwaa ma fahanteen jacaylka wax la barta maaya qalbiga ayuu ka imaadaa ama wax jeclow ama ha lagu jeclaado mafiish awkaata xuseen ayaa ii imaanaya usha qaybta beerta ha igu suga xaggeeda mudane jamiil waa ku baryaa wax leedha adiga idhihi adig si khaldanayaad wax u fahantay hadalkaas aa maqlaysana mid saxa ma ahayn waa ku baryaa saas idhe mudane إليف macaantadeeda sidee tahayna xaaladaada ka waran ma wada kulmi karnaa waaya macaantadeedana waan is arkaynaa maqaayadda bannaan ku taalan kugu imaanayaa gabadheeda dhibaato miyaa dhacdane gabadha maxay ku sameeyeen wax ii sheeg yaaqe waxay ku sameeyeen ma aqaan waa la soo kulmayaa sugbal meehan waxaa ka tahay waa dhibaato ayaa dhacday sidaas ayaan u malaynayaa
fiiri i dhegays labadiinna waxba ha sameynin ayaa idin dhaha haddaba waa idin soo laabanaya okey yaqay aniga dhagool miyaan nahayna gabadheeda macquul ma ahan waa arrin aad u fiican awkaad wax kaleeta aan qabanayna miyaa jirana muhiimadda waxay tahay firaad inuu saxiixa inta kale anigaa xalinaya ku yidhi mahadsanid waan ku sii dhowaynayaa